warka markay diyaarinayaan saw diyaariyaan dhageysta idinku ama BBC dhageyso ama VOA dhageyso warka madaxdiisi markay bilaabaan waxay ka bilaabayaan Israa'iil oo ka jawaabaysa gantaalo looga soo tuuray Gaza meesha ka bilaabay fiirada qaaynimadooda Israa'iil oo ka jawaabaysa mayada ka jawaabaysa masaajid dhulka haysata ma dhahayaan shacbiga reer Falastiin ee dhulkiisii la haysto ee gobonimo doonka ah oo sida caalamku uu xor u yahay dawladuhu ay xor u noqdeen inay xoroobaan rabaan oo hub ay isku difaacaan oo weyn ay haysanin ayaa daandaansiga yahuudda iyo dhul boobka ay wadaan ayagoo iska difaacaya yaa wixii ay heli kareen ayay ku soo tuureen laakiin waxay ka dhigayaan inay tahay Israa'iil mid isdifaacaysa shacbiga Falastiin uu yahay midka wax weeraraya qadino saas ma dhulkiisa qofka lagu dagaalamayo qofkaas ayaa madluum ah yahuuddu islaameed rabtaa inay qaadato waa laga celinaya marka innagana dareenkeena ayaan qayb ka nahay inaan shucuubtaas caalamka ee maanta muujinaysa inay ka xun yihiin waxa ka socda Falastiin ayaan qayb ka nahay marka khudbada qaybta labaad taas aan ku soo qaadanay shacbiga Soomaaliyeedna waa shacab lagu yaqaan dulmi diidka oo waligiis dulmi aan ogolaanin waa shacbi qayuur li diintiisa yani u qiirooda meel kasta adduunka uu ka joogana ducadaas ayuu la daba taagan yahay marka caalamka islaamka oo dhan waa sidaas inaguna waxaan nahay qayb aan ka go'aynin caalamka islaamka marka qof walba qaybtaada ka qaado duco dadka xataa wax gaarsiin kara say ku gaarsiinayaan laana qadiyadu way kala cadaatay maxaa yeelay kuwa gaalada ah yahuuda ayagoo loo jeedo ayay taangiyo siinayaan hub siinayaan lacag siinayaan Falastiin wax la siiyana waa dambi ayay ku leeyihiin marka walladina kafaru ba'dhum awliyaa ba'd gaaladu way iskaalmaysa illa taf'aluhu mu'minina hada idinkuna saa yeeli weydaan takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum أولياء بعض المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أسابعه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص سلاس على الرباب وعن كلام فلسطين وهي لنكرنا تانا الصومالي ذا إن أن إسعفنه أو ودن كان أن لسنه أو دقالة نحن أن جوجينه محيالي صومالي ذو سكستو رأي وكل دوينهين هذا وادت كاس مسلم كا oo salaadii jumcada tukanaya oo ramadaankii soonkii wada soomay oo taraawiixdii wada tukanaya oo ciida markay tukanayaan isu wada hambalyeynaya inaan cuqdad inagu dhex jirin waxa ku tusaysa qof kasta oo Soomaali ah ama mucaarad haada ama muxaafid ha aado ciida marka la joogo wuxuu ka bilaabayaa waxaan hambalyo u dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxa isdagaalanaya waaye ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ama gudaha ahaadeen ama banaanka ahaadeen waxa iskhilaafsan waa inagii un marka hambalyada aan isu dirayno meel kastoon joogno maxaan isugu diraynaa ciidaas ay naga dhaxaysa waan wada tukanay waxay arrimaha siyaasiga lagu kala duwan yahay waxa la rabaa xuduud inay leeyihiin war intaan aan ku kala duwanaano laakiin markay soo gaarto maslaxatul balad ummadda maxaa u dan ah shacbigeena maxaa u dan ah dadka banaanka jira ogtiin dhibaatada haysata hadaad u maleeysan dadka qurbaha aada inay janno ku jiraan caruurtoodii aaway akhlaaqdii aaway maxay dareemayaan waxay jeclaan lahayn wadankii oo xasilan inay caruurtooda soo cestaan oo nolol fiican ay ku helaan oo ay yani imaadaan laakiin qori dab hadii la hortaagnaado ma soo noqonayaan hadayna soo noqonina intii ayagoo waaweyn tagay banaanka inay diinta sii haystaan oo sii celceliyaan oo way dhici kartaa laakiin kuwa meesha ku dhashay ama ayagoo yar la geeyay oo subaxdii si iskool gaala ay u aadaan 12 saac dib lagu soo celinayo oo maanta oo dhan wax lagu soo akhrinayo shaqo kuleen adiga maxaa ku yaala dadkii markaa waxay dareenseen 30 sano maqayin way soo kartay wadankii ay rabaan inay ku soo laabtaan wadankiina dadkii joogayna kuwa banaanka jooga haday rabaan fidna soo fuufi aadeen kuwa gudaha joogo oo wacyi aan lahayn oo aan dareemaynin caalamku meesha uu socdo iyo dhulka ahmiyada uu leeyahay iyo meesha aan deganahay istiraatiijiyadeedii hadaan midowno dhaqaalaha aan helayni iyo hadaan walaalowno saan dad firfircoon oo wax qabsan kara u nahayo makriga gaalada ay nagu haayaan dad aan fahmaynin ayaa dhibkan wali ku sii jirnaa marka waxa la rabaa caalamku isbedelayaa waana lahu mustaqbalka diintana iskale ilaahina diintiisu u gargaaraya wallahu dalika walaw yashaa Allah lan tasara minhum haduu ilaahay raba gaalada markii uu ka arsan karaa ولكن ليبلو بعضكم ببعض لكن شغال يصدرك ورايغو حمان بي كشقينايان باطل بي ودان اذن كنا حق شقايه وحق دفاع انت ما ماشي تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين marka wanaag laga wada shaqeeyo ihsaanka laga wada shaqeeyo hal is walaashado umadeena Soomaaliyeed qiirada ku jirta ee Falastiin la qiiraysan yihiin
mid la mid ah dhexdeena inta isu qiiroono yaa Soomaali ahay yaa muslim ahay isu keenka ummadeena aan ka wada shaqeyno inagoo wada jirna marka ayaan Falastiin u kaalmeyn karnaa laakiin inagoo inaga isdilayna maxaan isu kaalmeynaynaa hadda waxa bay inaysan ka hadalna qaar waxa ku dhaayeen war Falastiin maxaa uga hadlaysan idinka Soomaaliya ba dhibkan ka taagan yahay waa wax la dhihi karo laakiin hadana saasay tahay shibaan kana waa yahay waxa la wixii aadan wada gaari karayn laga ma wada tago marka sida fiican waxay ahayd inagoo wada jirna oo walaale inaan walaalehen kaalmayno marka kaalmada aad jeceshiin inaad Falastiin gaarsiisaan kaga bilaaba inagu inaan iscafino oo dagaalka xaggaas dagaal kale oo inaga dhexdeena oo walaaltinimadeena aan isugu imaano oo walaalo noqda juudiyaas aan gelino markaas inagoo wada jirna markaas aan Falastiin wax u taraynaa ayaga naftooda inoo soo duceeyaan oo Falastiiniintu waa isfahamsanahay maadaama isku qadiyad aan nahay ilaahay shacbiga Falastiin ayna dagaal ka sokeeyo saasayna dhahan waxaan dad waxaatiin wax noo tari kara haddaad midowdaan laakiin qoftiisaba haysato saas ay tahay taanana wayna haysataa waa adoo lagu dhagan yahay haddana madaxa ka dhaqdhaqaaq way macna oo hawshii yani ha isdhiibin taanana aan ka shaqeyno oo midnimo iyo walaaltinimo ta ummadda islaamka inaga dhaxaysana wixii aan ku tari karno aan ku tarno aan ka wada qayb qaadano saas ay sharaftu inoogu jirtaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa ummaddaas reer Falastiin ilaahay inuu gargaaro cadowgooda ilaahay inuu ka qabto guusha ayaga ilaahay inuu siiyo hubkaas ay haystaan ee yar ilaahay inuu ku daro awoodiisa meesha ay la rabaan ilaahay inuu gaarsiiyo ilaahay inuu uga dhigo hubkoodan ay soo tuurayaan carradii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu maalintii Badr uu gaalada wajigooda ku tuuray oo uu dhigi jiray shaahatil wujuh oo indhaha ka wada gashay madaafiicda Falastiiniyiinta carradaas oo kale Allah ka dhigo wama ramayta id ramayta walakin Allah rama Allahumma armi sawaariikhahum ilaahu madaafiicdaas ay tuurayaan adigu tuur ilaahay ugu hagaaji midka gaaladu ay soo tuuraysana ilaahay nabi ibraahim dabkii ka badbaadiyay ee yiri bardan wa salaaman ala ibraahim reer Falastiin sawaariikhda yahuud ay ku tuurayaan bardan wa salaaman Allah uga dhigo bardan wa salaaman Allah uga dhigo gaaladaas yahuud ah ee muslimiintaas dhibayaan dhagartooda iyo khiyaanadooda ilaahay iyaga ku celiyo Allahumma ij'al tadbirahum fi tadmirihim Allahumma ij'al tadbirahum fi tadmirihim اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل يا رب العالمين اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك باليهود ومن والاهم المسلمين اللهم انصر من نصر الدين وأخذل من خذل الدين والمسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه